halkan daawadayaal aad arkaysaan waxa weeye bridge-ka weyn ee magaalada Hargeysa waa bridge-kii hore ee magaalada Hargeysa runtii waxa uu ka mid ahaa goobaha istiraatiijiga ah ee laakiin ka caagan dhinaca ganacsiga haatan hareerihiisa waxa ku sugan oo buux dhaafiyay bulshada qaybaheeda kala duwan oo ka mid ah dadkii ku ganacsan jiray suuqa waaheen ee gubtay ee magaalada Hargeysa duruufo adag xaalado kala duwan ayay waqtigan ku sugan yihiin ganacsatadii kala duwanaa ee shacbiga Jamhuuriyadda Soomaaliland ee waqtigii hore ku ganacsan jiray bartamaha suuqa waaheen hore ayaynu daawadayaal ugu sii socon doonaa bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland la dhax qaaday mikrofoonka barbarkayga waxaa taagan mulkiilaha meheradan aad arkaysaan waa cadcadle super style waa Axmed Muuse Jaamac bal Axmed waxa uu hadda warbixin inaga siin doonaa waqti xaadirkan meheradan aynu ku sugannahay iyo suuqiisa hore ee waaheen xilligan oo kale isbeddelka ku dhici jiray iyo qaabka ay muxuu ahaayay ganacsigu u xoogaysan jiray بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ugu horeyn waxaan u mahadnaqayaa Ilaahay Raxmaanka ayaan u mahadnaqayaa marlabaadka waxaan u mahadnaqayaa telefishinka qaranka Soomaaliland waxa weeyaan haddii aan ka bixiyo warbixin duruuftii u dhaxaysay barigaan deganaa jiray waaheen iyo duruuftan markaa u dhaxaysa kul isbedel weyn baa u dhaxeeya alxamdulillaah rabbil caalamiin wixii aanu haynay way gubteen Ilaahay garanayay qadarkiisa ay ku dhaceen waxa weeyaan markaa waxa weeyaan imanka sidan aan halkan u soo degnay wixii aanu la baxnay ee noo badbaaday ayaanu halkan soo dhiganay markaa waxa weeyaan markii aanu soo dhiganayna ka bacdi waanu soo suuqowday dhammaan waxa adeegyada arkasaan wixii damar ku soo dareeyaan alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan dareemanaa imka nafis baan dareemanaa wadooyinka way noo furan yihiin bariga hore xagga waxaan dareemi jiray cidhiidhi fara badan baan hadda kala dareemi jiray waxa weeyaan cidhiidhi saxmad fara badan baan dareemi jiray laakiin imka intii aanu halkan soo degnay wadooyinka way noo furan yihiin dadkina way noo imanayaan si tartiib ah marka alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan ku idin inoo dambaysaa imkana wallahi niyad fiican iyo moral baan haynaa waa hagaag Axmed waxaad ka warantaa halkan aynu joogno bulsho fara badan oo gudaha iyo dibadba ku sugan waxa laga yaabaa inaanay sawir ahaan garanayn bal hadda markaad u sheegto u tilmaan sax ka bixiso weelka halkan waxa la yiraahdaa dalxiis koonfurteeda ayaanu imika deganahay ka soo horjeedka fooqa SBI-da oo ku beegan dalxiis koonfurteeda hawda ayaan deganay bartaas aan deganahay daawadayaal waa marka laga soo talaabo bridge-ka Hargeysa looga soo talaabo dhinaca koonfurta Axmed ma islahaydeen halkani suuq bay noqon kartaa wallahi markii hore ismaan lahayn suuq bay noqonaysaa waayo qadarta Ilaahay baa iska leh farxad baan ku nimid markii hore ma garanaysaa marka alxamdulillaah rabbil caalamiin meesha markii aanu degnay aanu aragnay in suuqoobayso ayaanu aaminay alxamdulillaah rabbil caalamiin dameerdina oo arkaysa dadkina oo kuwaas oo tuban yihiin meel wax laga iibsado oo suuq oo lagu soo ururo ay dadku ay bidhaaminayeen waxaan aaminay markaa inaan Hargeysa halka u dambaysa hadii aan tago inay suuqoobayso oo ay wanaagsanaan soo laygu imanayo calafkayga halka ay igu imanayaan ayaan aaminay alxamdulillaah rabbil caalamiin Ilaahay baan u mahadnaqayaa waa hagaag Axmedow sidaad sheegtay waxaad ka mid ahayd dadkii ganacsatada ahaa ee suuqa waaheen ku sugnaa maadaama oo meheradii ay guud ahaan sidaynu ka warqabno suuqa waaheen uu gubtay oo uu basbeelay haatan meheradaadu way camiran tahay bal bulshada waxa tafaasiil ka siisaa halkeed wax ka bilowday wallahi markii hore waxaan ka bilaabay ganacsigaygu wuxuu ahaa markii hore meheradee caan la yaqaan oo ku taalo waaheen ka bacdi way meheradii way gubatay markii ay gubatay waxii aan la baxay aan Ilaahay ii badbaadiyay ayaan bartan la soo degay dhismahaas aad arkaysaan u sameeyay anaga iyo nimadaasi waxa ganacsatadaas oo dhan baa shiraakownay ka bacdi markii aanu halkan nimid dhismaha aanu galay alaabtii baan soo qaadnay ilaa week baanu rafanay oo shaqeynay ka bacdi dabeetana markii dambana alaabtii aanu keenayna waa taasiraatay meesha bulshadina waa halka noogu timid alxamdulillaah rabbil caalamiin waxa weeyaan dawladda hoosana fariin baan gaarsiinaya maarka Hargeysa waxaan farayaa inuu sidaa basku halka u soo istaagay dadkii loo suuqeeyay in loo hakiyo oo dadka halka waxa loo suuqeeyay loogu hakiyo baska
halkaa in dadaalkaa laga sii wado ayaan fariintaas u faraya. gaadiidku ma dhibaatooyin bay ku hayaan bulshada halkan ka ganacsanaysa may wax dhibaataa kuma hayaan in yaro saxmada ayaa jirto dad isweydaara waayo looma baran markii hore ma garanaysa toos in loo galaa waa loo bartay laakiin imika intuu basku halkaa ka kala laabayo intaasuma saxmad jirta laakiin wax dhib oo nagu hayaana ma jirto ummaduna way la baratay oo taas oo qulqulaysa alxamdulillaah rabbil caalamiin marka waan ilaahay baan u mahadnaqaynaa. axmed muusow suuqa waaheen waxaa baabiiyey dab ka kacay iyo qadarkeebo ku dhacay weli maryihii waad iibinaysaan waanay u nugul yihiin in muxuu ahaye khatar guban karaan arrintaas seed uga feejigantiin wallaahi wadiga arkaysa horta aad baan uga feejiganay waxaan ku cashtii horena cashar ka soo barnay bacdamaa waanu cashar ka soo barnay tan imika digtooni fara badan baan ka qabnaa hadday xagga leyrka tahay hadday xagga bacaa tahay aad iyo aad baan uga feejiganay baashan aad arkaysaa waxa weeyaan waxaan rajaynayaa inaan ka sii gaashaantay oo aan damiska bahasha aan ugu talagalin haddii wax ilaahay dee shil keeno inaan dee aan degdeg markiiba u baktiyo oo aan dee ka howlgalo markaa diyaargarowna waan ka sameeyataa bulshada iga soo horjeedana waa ila mid markaa waan ka fejiganay haddii ilaahay idhaahdo waa hagaag tani markaa waa waxyaabaha ma la odhan karaa waxyaabaha aad ka barateen iyo casharada aad ka barateen dabcan waa caynkaa weeyaan waa casharada aanu ka baranay ayaan ku howlgalay markaa ka fejiganay wakhtiyo fara badan waxaa dhacday in maamulka iyo taliska debdemisku ay fariimo idiin soo diri jireen oo ay ma la odhan karaa maanta wax weyn baa iska bedelay aad wax weyn baa iska kaya bedelay sababtoo ah waxa weeyaan markii hore waxaan ka sheekaynayaa noomu qurqursaneenba waxaanu iska ahayn dad jaantaan rogan oo ganacsigana waxaa ku xoog iyo qartijac ku sameeyay markii hore waayo wadada waxaanu ku degnay qartijac baan ku degnay inkastoo aanu haad raacnay anagu aan wadada bartikeeda degnay ka bacdi dadana intii aanu markii aanu barnaynay markii intii ilaahay noo barakeeyay noo balaartay aanu shaqaynay waxa dhacday in ganacsato kale oo yaryar naga soo daba baxday markii ay naga soo daba baxday waxa keenay inay waxay taas keentay inay wadadii xidhaan markii wadada xidhantay dadna waanu sii xidhanay anaguna marka cidhiidhiga iyo dhibaatadaas marka wadadii fushay anaguna waxaan isnuudee walaaladii inoo bariisanayay nimankan wadada horteeda degan goortii ilaahay kala fartaamay la arki doonaa inta dawladdu ay meel sameynayso iska samra soomaad garan marka ka bacdi adigu ilaahay qadartiisu bay ku timid taliyaha dawladda taliyaha dadamisku fariimu noo soo faray wuxuu yiri ka feejinaada aad uga taxadira dhagumaana dhigi jirin waan iska jeednay imakaanu wixii uu noo sheegay dawladda hoose noo sheegaysay iyo taliyaha dadamisku maanta in hor yimaadeen waana qadar ilaahay waana ku sabrnaa wixii dambe ka feejinaan doonaa hadii ilaahay dhaado imika baalkan waxa iga muuqata bahashii dabdamiska dad ku tababaran oo arrintan u hawlan ma jiro والله waxaan u maleeynaa dadka oo dhan way ku tababarayeen way ku tababarayeen oo way hawlayeen oo way u diyaar garoobayaan hadii uu yimaado dabkuna markaba waxa ku baashaas la wada qaadanaya meherad walba haysta sayla taaniga rajadaada ka waran iyo fariintaas shacbiga u diraysa alxamdulilaahi rabbil caalamiin rajadu aad iyo aad bay fiican tahay marka waxaan qabaa rajo 100% inaan insha Allah ilaahay raahdo horumar badan sameyn doono wixii aan dawladda hoose ka rajaynayaan oo inaan boos helo oo aan meel joogta helo ilaahay ka rajaynaya